kulanti wacan daawadayaal ku soo dhawaada channelka xaqiiqsan media qodobada ugu xiisaha badan aan idin haynana waxaa kamid ah xisbiyo siyaasadeed oo ku shiray Muqdisho oo war ka soo saaray xaaladda dalka walaac ka jira hub sharci daraa oo la ogaaday in laga soo dejiyo mid kamid ah dekedaha dalka iyo dowladda federaalka oo digniin loo diray maxkamad ku taala Hargeysa oo xukuntay nin diinta aflagaadeeyay ra'iisul wasaare Khayre oo amar culus dul dhigay mid kamid ah golahiisa wasiirada faahfaahin ka soo baxaya qarax ciidamada dawladda federaalka lagu la eegtay degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe mid kamid ah beelaha Soomaaliyeed oo dacwad ka gudbiyay dawladda federaalka Soomaaliya akhbaaraadka caalamkana daawadayaal waxa ugu doorkaroon afgambi la doonayay in lagu rido dawladda Venezuela oo fashilmay intaasi waxay ahaayeen qodobadii warka ugu doorkaroona markana waxaad ku soo dhawaataan iyaga oo fidsan xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira oo ku shiray magaalada Muqdisho ayaa war ka soo saaray xaaladda dalka iyagoo dhanka kalena walaac ka muujiyay hub sharci dara oo la ogaaday in laga soo dejiyo mid kamid ah dekedaha dalka iyagoo dawladda federaalkana u diray fariin culus xisbiyada siyaasadeed ee dalka ayaa shalay kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho iyagoo kaga hadlay arrimo dhowr ah oo ku saabsan xaaladda dalka uu marayo shirka oo ka dhacay xarunta xisbiga Ilays ee uu hogaamiyo xildhibaan Cabdiqaadir Cusble Cali ayaa waxay xisbiyada soo saareen warmurtiyeed ka kooban ilaa 4 qodob kuwaasi oo ay ka mid yihiin in la gudbiyo sharciga doorashada sidoo kalena doorashada waqtigeeda ay ku dhacdo xisbiyada siyaasadeed ee shiray ayaa ku dhawaaqay qorshe ay ugu magac dareen ku soo nabad kuna anfur nabad waxaana hay'adaha amniga ay ugu baaqeen in ay xaqiijiyaan amniga xisbiyadu waxay isku raaceen in hay'adaha ka shaqeeya arrimaha doorashooyinka ay si dhow ula shaqeeyaan xisbiyada caqabadaha haysta xisbiyadu waxay sidoo kale walaacay ka muujiyeen hubka sharci darada ee dekedaha kala duwan ee dalka ka soo degaya waxaana ay cabsi ka muujinayaan in hubkaasi uu gacanta u galo kooxaha nabadiidka maxkamad ku taala magaalada Hargeysa ayaa xukuntay nin aflagaadeeyay diinta maxkamadda gobolka Murudijeex ayaa 2 sano iyo 6 bilood oo xariga ku xukuntay macallin Maxamuud Jaamac Axmed Xamdi oo lagu helay dambi ah inuu aflagaadeeyay diinta Islaamka macallin Maxamuud ayaa kamid ah macallimiinta jaamacadaha magaalada Hargeysa waxaana maalmihii ugu dambeeyay uu baraha bulshada ku daabacay qoraale lidi ku ah diinta Islaamka ciidanka booliiska Somaliland ayaa dhawaan soo xiray ninkan oo la sheegay inuu ku kacay fal ka careysiyay bulshada Somaliland macallin Maxamuud ayaa si weyn looga yaqaanaa deegaanada Somaliland waxaana uu dhowr jeer soo noqday musharaxa golaha deegaanka magaalada Hargeysa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa amar culus dul dhigay mid kamid ah golahiisa wasiirada ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa kormeer ku tagay xarunta wasaaradda maaliyadda iyo saldhigga booliiska degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa xarunta wasaaradda maaliyadda kula kulmay wasiir dowlaha wasaaradda ahna kusimaha wasiirka xisaabiyaha guud iyo agaasimaha guud ee wasaaradda waxaana kala hadlay dardargelinta shaqooyinka hor tabinta leh ee wasaaradda gaar ahaan halbeegyada wasaaradda ay ku leedahay tubaha qaranka saldhigga booliiska degmada Xamarweyne ayuu ra'iisul wasaare Khayre sidoo kale kormeer ku tagay waxaana warbixin amniga degmada ka dhageystay taliyaha saldhigga isagoo ku bogaadiyay shaqada ballaaran ay booliiska bulshada u hayaan ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa ugu dambeyntii booqasho ku tagay suuqa degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir waxaana qaar kamid ah ganacsatada iyo dadka u soo tukaamaysi tagay ka wareysay xaaladda ganacsi iyo amni ee suuqaasi dhanka kalena faahfaahin dheeraad ayaa waxay ka soo baxayaan qarax ciidamada dawladda federaalka lagula eegtay degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe warar dheeraad ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay qarax ka dhacay degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe qaraxan oo si weyn looga maqlay qaar kamid ah xaafadaha degmada Balcad ayaa waxa uu nuuciisa ahaa miinada dhulka lagu aaso ee meelaha fog laga hago sida ay noo sheegeen dadka deegaanka dad goobjoogayaal ayaa warbaahinta u sheegay qaraxan oo lagu aasay derbiga wado u dhow guri halkaasi ku yaala in lala eegtay ciidamo ka tirsan dawladda ciidamo ku sugnaa meel aan sidaasi uga fogeen goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa durba gaaray halkaasi waxaana ay qaadeen dadkii ku waxyeeloobay qaraxan si ay u gaarsiiyaan goobaha caafimaadka ciidamada dawladda federaalka ayaa halkaasi ka bilaabay baaritaanka la xiriira qaraxan waxaana ay xireen aaga goobta uu qaraxa ka dhacay iyaga oo halkaasina soo buux dhaafiyeen dadweynaha deegaanka mid kamid ah beelaha Soomaaliyeed ayaa dacwad ka gudbiyay dawladda federaalka Soomaaliya kadib shir ballaaran oo isugu yimaadeen odayaasha culimada diinka dhalinyarada iyo beelweynta shaqaal
Jazeera iyo beelaha Banaadiriga ayaa waxay si isku mid ah uga dhiidhiyeen dhulboob ka socda deegaanka Jazeera ee duleedka magaalada Muqdisho. Suldaan Nuur Xaaji, Nabadoon Maxamed Weli Ugaas Axmedey iyo Suldaan bin Cali oo si wada jir ah ula hadlay warbaahinta ayaa sheegay in wax laga xumaado ay tahay boob lagu hayo dhul ay leeyihiin dadka deegaankaasi. sidoo kale waxa ay uga digeen cid kasta oo ku howlan dhulka deegaanka Jazeera inay meel cidla ah ku bixin lacagtooda maadaama dhulkaasi ay leedahay beelweynta Sheeqaal Jazeera. dhinaca kale Nabadoon Maxamed Weli ayaa warbaahinta u aqriyay go'aano ka soo baxay hoggaanka beesha Sheeqaal. ugu dambeyntiina wararka dibadda haddaynu eegno afgambi la doonayay in lagu rido dowladda Venezuela ayaa fashilmay. mas-uuliyiinta dalka Venezuela waxay sheegeen inay fashiliyeen isku day afgambi oo ay wadeen ciidamo ka tirsan militariga kadib markii hogaamiyaha mucaaradka Juan Guaido uu shaaca ka qaaday inuu hayo tallaabadii ugu dambeysay ee uu ku afgambinayo dowladda uu hogaamiyo Nicolas Maduro. hogaamiyaha mucaaradka ayaa ka soo muuqday muuqaal isagoo ku andacoonaya inuu haysto taageero militari. wararka waxay sheegayaan in militariga aysan wax taageero ah ilaa hadda siin Juan Guaido ayaa horaantii sanadkan isagu ku dhawaaqay inuu yahay madaxweynaha ku-meel gaarka ee Venezuela waxaana ka codsaday militariga inay ku taageeraan inuu xilka ka tuuro Maduro. si kastaba hogaamiyaha mucaaradka ayaa taageero ka helay dalal dhowr ah oo uu ka mid yahay Mareykanka. madaxweynaha Colombia waxa uu militariga ugu baaqay inay taageeraan Juan Guaido. guud ahaan warkii aad kala socoteen channelka Xaqiiqsan Media daawadayaal waa naga intaasi. fadlan subscribe saar channelkan sidoo kalena like iyo share ka iloobin qaybta hoosena aragtidaada ama faaladaada noogu reeb. waana mahadsantiin.